السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم على الجنة الكمركة للسود وهذا أدي هذا ومهستين وهبين نمت هذا يسيب بحيس 4 سوق ليس أنا سديد يلا باتنا ينوتها بيش جانوري سنة كلا بدأ كوني يشان يلا باتن كدت كقارن سجالي يلا باتن كأي بجلان مقال كم حربا إن أوجه الله شرج رائد أو ما أنت قبته وين إذا ترام وأمجا وهي أفيان كأقل كعد مريكان كشركة الجرائد أوجه الرئي هي قبتي أرنتا ما أنت وضن كمرة كموي كذا لسه أو deeqihii gobolada Mareykanka la siin jiray in wareegto madaxweyne Trump uu soo saaray uu ku joojiyay arintaasi ayaa muran weyn Washington maanta ka dhalisay maxay ka tiri arintaasi walow garsoore maxkamadda federaal ah gelinkii dambe ee maanta xilligii la filayay inay dhaqan gasho oo si ku meel gaar ah u joojiyay afayeenka aqalka cad waxay sidoo kale ka hadashay arrimaha masaafurinta oo mar kale ay ku celisay in muhiimadu aysan ahayn dadka dambiilayaasha oo kaliya in la masaafuranayo laakiin qof kasta oo wadanka sharci darro ku soo galay waxay tiri waa dambiile oo dambi ayuu galay markii wadanka sharci darrada uu ku soo galay iyo isbedel cusub oo lagu sameynayo in aqalka cad gaar ahaan qaybta qaabilsan saxaafadda waxay sheegtay in dad cusub lagu casuumi doono haddaba dadkaasi maxay yihiin cilmi waara xitaa ma ka mid yahay sidoo kale waan idinla wadaagayaa balse marka hore aan ku hormaro maanta waxaa soo baxday saaka subaxdii hore in aqalka cadda gaar ahaan Trump uu soo saaray wareegto uu leeyahay waxaan ku joojinayaa dhammaanba gargaarkii la siin jiray gobolada wadanka Mareykanka marka ururo badan iyo hay'ado fara badan ayaa waxay yiraahdeen arrintan anaga ay noqosaynaysaa marka muran badan ayaa jira dimuqraadiyiintu xitaa shir jaraa'id ay qabteen gudoomiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka Jack Schumer waxaan uu yiri madaxweyne Trump awood uma lahan waxyaabo ama Congressku ay meel mariyeen in isagu wareegto uu ku bedelo waxay u baahan tahay Congress-ka in uu bedelo marka xafiiska dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha maamulka iyo miisaaniyadda oo la yiraahdo Federal Management and Budget oo OBM loo soo gaabiyo ayaa waxa uu sheegay in wareegtadan madaxweyne Trump uu soo saaray laga bilaabo maanta 5 galabnimo ay ahayd inay joogsato lagu joojinayo dhammaanba deeqihii kala duwanaa ee dawladda federaalka ay siin jirtay gobolada Mareykanka marka waxa laga reebay Medicare iyo sidoo kale waxa laga reebay Social Security welfare-ka dadkii la siin jiray dadka wadanka xitaa dhawaan soo galay ama food stamp la siinayay ama cash la siinayay iyo sidoo intaasi oo kaliya ayaa laga reebay marka dhammaanba waxyaabihii kale oo la siin jiray sida jaamacadaha ururada aan faa'iido doonka ahayn deymihii la siin jiray small business ganacsiyada yar yar iyo sidoo kale lacagihii la siin jiray gobolada iyo dawladaha hoose in dhammaanba la joojiyay ayaa wareegtada ku qorneen marka sidaa darteed ayaa 22 gobol oo dimuqraadi iyo caasimadda DC isla markiiba dacwad ay ka gudbiyeen marka galinkii dambe ee maanta xilligii la filayay in 5 galabnimo ay dhaqan gasho ayaa garsoore federaal ah oo magaceeda la yiraahdo Lauren Ali Khan عملية ما باكستاني مالها سياسة لهان كسو جدا ما قرانيو ولا يرادو لورن علي قانا يا waxay sheegtay in si ku meel gaar ah ay u joojinayso wareegtadaasi xilligii ay dhaqan gali lahayd marka ma dhaqan gali karta ay tiri ilaa iyo amar dambe waxana ay sheegtay in ay wareegtadan aysan dhaqan gali karin ilaa iyo laga gaaro isniinta soo socoto 5 galabnimo marka maanta ayay ahayd inay dhaqan gasho sida darteed ma dhaqan galayso ayay tiri waxana la filayaa in isniinta soo socoto la isugu soo laaban doono marka jahwareer badan ayaa ka jiray maxaa hoos imaanaya wareegtadan maxaa la joojinayaa maxaa la joojinaya dadka qaar waxaan maqlayay waxa la joojinayaa low income ka dadkii ayna guryaha ku jiray ama section 8 iyo waxyaabahaas ilaa ay hadda ma kala caddo waxyaabaha rasmiga ah ee wareegtadan Trump uu doonayay dhamaantood lama wada oga qaar kamida waa la og yahay marka arintaasina ma jirto marka afayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa arintaasi wax laga weydiiyay shirkii jaraa'id ee ugu horeeyay maanta ay qabatay waxayna sheegtay in Trump wareegtooyinka uu soo saaray ay kamid tahay sida darteedna waxyaabaha aan ku jirin wareegtadan oo aan la joojin Medicare-ka Social Security-ka welfare-ka oo food stamp-ka ay kamid yihiin ay kamid tahay iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tiri I gave you a list of examples: Social Security, Medicare, welfare benefits, food stamps that will not be impacted by this federal policy. sidoo kale Caroline Levitt arrimaha immigration-ka iyo qabqabashada dadka sharci darrada ah ee wadanka ku soo galay sharci darrada ayaa wax laga weydiiyay waxa la weydiiyay shalay dadkii la soo qabtay inta badan waxay u badnaayeen dad aan dambiilayaal ahayn oo wadanka kaliya sharci darro ku soo galay marka muhiimadii Trump oo ahayd uu ku ololeeyay oo ahayd in dadka dambiilayaasha uu hormarin doono wadanka dambiga
waqooyi ka galay oo ammaanka qaranka iyo ammaanka shacabka khatarta ku ah wax miyaa iska bedelay oo qof kastoo waddanka sharci darro kusoo galay miyaa la masaafurinaya. Caroline Levitt waxay tiri haddii waddankan aad sharci darro kusoo gashay dembiile ayaa tahay, taas ayaaba dembi ahay tiri in waddanka sharci darro kusoo gashay. sidaa darteed qof kasta oo waddankan sharci darro kusoo galay miiska ayuu saaran yahay waana la masaafurin karaa. iyadoo arrimahaasi ka hadlayana Caroline Levitt waxay tiri The president has said countless times on the campaign trail, I've been with him at the rallies, I know you've been there covering them too, Peter, that he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. And so therefore, you are subject to deportation. The president has also said two things can be true at the same time. We want to deport illegal criminals, illegal immigrants from this country, but the president has said that, of course, the illegal criminal drug dealers, the rapists, the murderers, the individuals who have committed heinous acts on the interior of our country and who have terrorized law-abiding American citizens, absolutely, those should be the priority of ICE, but that doesn't mean that the other illegal criminals who entered our nation's borders are off the table. Caroline Levitt oo ah fayeenka aqalka cad oo Trump u magacaabay shirkeedii jaraa'id ugu horeysay maanta qabatana waxay sheegtay in xafiiska aqalka cad u qaabilsan warbaahinta isbedel weyn lagu sameyn doono. waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uu ka dhabaynayo aan ballanqaadkiisii ahaa in uu hufnaan sameyn doono wax kasta ama dhalacaday uu noqon doono. waxa ay sheegtay in marka hore isbedelka la sameyn doono ay tahay baaritaano la sameeyay in lagu ogaaday in inta badan dadka da'da yar ee dhalinyarada ah aysan tviyada daawan joornaaladana aysan akhrisan oo inta badan social media ay xogtooda ka helaan. marka sidaa darteed waxay tiri aqalka cad waxaa loo furi doonaa dadka broadcastiyada sameeyo, dadka content creatorska oo dadka warbixino kala duwan la wadaago, dadka social media influencerska oo social media caanka ah. waxay tiri marka hore warbaahinta oo kaliya waaweyn ayaa loo ogolaa jiray sida joornaalada iyo tviyada ama idaacadaha, laakiin hadda waxay tiri waxa aan cod siin doonaa dadka iyagu social media wax kusoo gudbiya. cilmi waara ayaa ka mid ah. marka waxa ay sheegtay in sidoo kale 440 wariye oo maamulkii hore Biden kaararkoodii aqoonsiga aqalka cad ay ku gali jireen si qaldan oo ugala laabtay in hadda dib loogu soo celinayo. marka waxay tiri waxaan fursad siinaynaa dadka iyagu social mediaha wax kusoo gudbiya ama news ha ahaadaan ama vlogs ha ahaadaan ama podcast ha ahaadaan, dadka wax kusoo gudbiya ayaan fursad siinaynaa. waxay tiri marka website-ka cusub ayay ka soo apply gareyn karaan. website-kan waxay tiri whitehouse.gov/new media ayuu qofku ka soo apply gareynayaa. markaasi kadib haddii la aqbalo oo secret service requirementiga qofka looga baahan yahay, qof dambiilaha aqalka cad looma ogolaanayo. marka qofka vetting ayaa lagu sameynaya, waa la baaraya, interview ayaa la lanaya, markaasi kadib ballanta ayaa loo qabanaya, aqalka cad ayuu tegaya, kaarkiisa ayaa la siinaya. markaasi kadibna shirarka jaraa'id ee aqalka cad xitaa madaxweynuhu hadduu qabanayo macnaheedu waxay tahay waa ka qayb geli kartaa. anigoo kale haddii aan apply gareeyo la ogolaado macnaha waxay tahay aqalka cad intaan tago ayaan Trump su'aal weydiin karaa. xitaa su'aasha u horeysa maanta waxaa weydiiyay qaar ka mid ah dadka iyagu ayna warbaahinada ama social media ku jira oo ka soo qayb galay. marka iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana Caroline Levitt waxay tiri And in keeping with this revolutionary media approach that President Trump deployed during the campaign, the Trump White House will speak to all media outlets and personalities, not just the legacy media who are seated in this room. Because according to recent polling from Gallup, Americans' trust in mass media has fallen to a record low. Millions of Americans, especially young people, have turned from traditional television outlets and newspapers to consume their news from podcasts, blogs, social media, and other independent outlets. It's essential to our team that we share President Trump's message everywhere and adapt this White House to the new media landscape in 2025. To do this, I am excited to announce the following changes will be made to this historic James S. Brady briefing room, where Mr. Brady's legacy will endure. This White House believes strongly in the First Amendment, so it's why our team will work diligently to restore the press passes of the 440 journalists whose passes were wrongly revoked by the previous administration. We're also opening up this briefing room to new media voices who produce news-related content and whose outlet is not already represented by one of the seats in this room. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And you can apply now on our new website, whitehouse.gov/new media.
Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. aad iyo aad ma santiin asxaabta waxyaabaha kale soo kordha hadii aad leedmo waa idin soo socodsiin doona stay tuned la socda intaan mar kale kulmi doono saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo